Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhawaada kanaalka Right Click Som waa anigu ah Mr. Click. Maanta muuqaalkeena waxaan uga hadli doonaa qaab aad iyo aad u fudud oo aad ku muujin karto taleefankaaga quruxdiisa. Marka intaan u guda galin muuqaalka waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay marka koowaad oo soo boqoto kanaalka, fadlan subscribe saar, sidoo kalena gambaleelka furo si uu kugu soo dhaco muuqaal kasta oo aan soo dhigno. marka koowaad waxaad la soo degaysaa application-kan shaashada ka muuqdo ah magaciisa Hightech Launcher. marka application-ka linkiisa waxaan ku reebay dhanka description-ka, halkaas ayaad ka soo rugan kartaa. marka koowaad waxaad galaysaa Play Store-ka, meesha search bar ayaad ku qoraysaa Hightech Launcher. marka waxaan ku dhufan doonaa application-ka u koreeya. application-kan aniga mar hore ayaan soo install gareystay. marka application-kan ayaad soo install gareysanaysaa marka koowaad. waa application inna waan caadi ahayn oo taleefankaada mid qurxoon ka dhigi doono. sida sawirada ka muuqda waad aragtaa, mid aan caadi ahayn ayuu kaga dhigaa taleefankaaga oo quruxdiisa ayuu soo muujinayaa. marka application-kan la soo deg, linkigana waxaan kugu reebay dhanka description-ka, halkaas ayaad ka heli kartaa waadna ka soo roganaysaa. kadib markaan halkan imaano application-kii aad soo rogata ayaad tuujinaysaa. waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay application details, hoos ayaad u socon doontaa. waxaad ku dhufanaysaa meesha ku qoran tahay home app, kadib waxaad ka soo dooranaysaa home app. meeshaas ayaad dooranaynaa ay ku qoran tahay Hightech Launcher. waa kana, waaw cajiib wey. taleefankii waad aragtaa shaashadiisa soo eg tahay, mid qurux badan ayuu noqday, aan laga ka siin mobile. waa computer meesha yaala isleedahay. marka taleefankii hadda waad aragtaa mid qurux badan ayuu noqday. haddii aad rabtid inaad colorkii waxa iska bedeshid, meesha dhexda ayaad ku dhufanaysaa, kadib colorka rabto ayaad dooranaysaa. laakiin badanaa cagaarka ayaa ugu fiican oo dadka cagaarka ayaa isticmaalaan. marka cagaarkiisa ku daa. sidoo kale farta waa iska bedeli kartaa, icon size-kan iska bedeli kartaa. farta noocaad rabtaa ka dhigaysaa style 1 up to style 8. marka style-ka rabto ayaad dooranaysaa. kadib icon-kan waa iska bedeli kartaa, sidii icon size-ka waa weynayn kartaa waana yareysan kartaa. marka taleefankaaga mid aan caadi ahayn ayuu kusoo baxayaa oo aan laga garanaynin iPhone 13. marka haddii aad rabto inaad application-kan aad sidii hore ku ceshato taleefankaaga, waxaad ku dhufanaysaa meesha u hooseysa, kadib waxaad tagaysaa application-ka aad soo gashatay, waad xogaa ayaad tuujinaysaa. kadib waxaa kuu soo bixi doonaa sidan app info ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufo hoos u soconaysaa, home app ayaan ku dhufaynaa, kadibna haddana home app aan kasoo dooraynaa, tigta ayaan ka qaadaynaa oo waxaan dooranaynaa launcher. maanta muuqaalkeena intaas ayuu ku egyahay. walaal waxaan ku dhihi lahaa haddii ay tahay mar koowaad aad soo boqoto kanaalkan oo hadda muuqaalkan aad daawanayso, fadlan hanala garamarin subscribe saar kanaalka oo nagu dhiirigeli inaan hore u soconno. sidoo kale gambaleelkana furo oo la soco muuqaal kasta oo soo dhigno. waxaan diyaar u nahay inaan ka qabtirno baahida u qabto barashada teknolojiga iyo wixii la xiriiro. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.